waxaan aad ugu faraxsanahay xafladan sida sharafta loo soo abaabulay kuna saabsan dadka dhibaatooyinka wada in la iska kaashado maqalkeeduna yahay muuqaalkeeduna yahay aad baan ugu faraxsanahay waxaan kaloo ku faraxsanahay degmadan weli ma aanan imaan deeq madaxda ka tahay marka degmo madax imaan karto madax leedahay degmo madaxeeda aan arkaa deeqo iyo intii la shaqeeyo aad bay u mahadsan yihiin haddaan ka soo gudbo waxaynaan maanta wax iska weydiinayn kooxda al-shabaab anigu waxaan u haystaa inay dibudhac nagu tahay aan maanta wax iska weydiino waxaan ka yeelayno waxay agtanada ka yihiin waxay nala damacsan yihiin inaan maanta wax iska weydiinaa dibudhacay nagu tahay kooxda al-shabaab waxaan maashiisanahay hadda maalmo dhowey shiraday ka wadeen gobolkaas shabeellada hoose nin hadduu balaayo wadi jiray markuu isu yaabo quraansaar iyo yabara iyo muxuu ahaa baal buquurun iyo waxbuu raadsadaa xaqa buquurintii ku jiraana dadkay waxay leeyahay wax buquuriya marka waxaan maqlay in la yiri oo caydeera yiri dhaqanka beeraha hawiyaan la heshiin saas ma jirta horta warkaasi war jira maaha waa dacaayad caldaan waa wuxuu sheegi jiray lamana heshiin doono nin wax garta anigu waxaan gudoomiye ku-xigeenka beeraha weyn caaqil xasan ibn yaxyaa la yidhaahdaa arrintaas hadda waxaan wadnaa qabanqaabo shirweyne ah oo arrintaas aan uga hadlayno oo sumxumada ninkaasu loo geysta aan uga hadlayno ayaga qaarkoodna taleefanaan kula hadalnay waxay yidhaahdeen arrintaas waa arrin loo dhammaa maahayn waa arrin nin guri ku jiraahu yiri ayaga laftoodii baa shallayta ka qaba maanta saddex maalmood inay u qabteen oo la hadlahayeen wax jira weeye dadka meesha degan waxaa jira sida xaqiiqadu tahay dad inta laga burburiyey muqdisho oo qaxay oo tegey ayagu ka shakiyeen oo isyidhaahdeen dadkan soo kordhay armay fidna ay ku sameeyaan mar kuwii isberi yeelahaya oo inay danu keentay meesha isku beri yeelahaya iyo kuwii joogay oo kuwaan ka baqahayaan may bala idin keenaan sheeka dhaw intaasuu ku saabsanaa runtii burburintii muqdisho oo dowladdu dadka shacabka ay burburisay daanooyin badan ay noo geysatay jidgooyooyinka hadda maanta jira waad yaabaysaa baabuurtii afgooyay dhooban tahay wax gudba waa la waayo wada isbaara marka waxaan kala qaadno waxay anagu aan leenahay oo maamul xumo iyo wixii al-shabaab leeyahay rabnaa inaan kala qaadaan ugu hadaalay maaha dad bini-aadamnimo ay ku shaqaystaan raba maaha haddana markay arkeen noloshoodu inay dhala soo gashay waa daran yihiin ana hadda waxaan aad uga rijo qabaa dadka nagaan sharafta badan leh dadana uurka kala socdaa ifa kala socdaan maramidiya aadan uga cabsi qabaa al-shabaab dad islaama maaha dad la soo dhawaystana maaha haddaad islaam tihiin oo ahlu tawxiid tihiin al-shabaab ha soo dhawaysanina ilmihiinna kala taliya awlaadiinna kala taliya wixii yaqaan kala taliya waa mission
فران ورجعنا كاه الدين لا فره الأسلحة بدأ كل شيء لقى محبو مش فروي مت مبردة مت بابور سوق حية مت بصورة ستة نوع عصير سنية السؤال هو يسمينا أنت يسمع هذا ويسوع ذا جاري هذيك يدير هيان السؤال هو يسمينا الشباب وادعين وانا ضمادين والله دين الجمهور dadkii yaqaan baa yaqaan xoolaaleyda birta markii lagu dhufto xog aad u qiimo badan oo rafad ay sameeyeen gaf ay sameeyeen rafadkii waaye rafadkii dhiiga lagu faganayo iska celino dad degan oo naftooda ku aruursanayeen weeyaan in habal dirleh shiila been ah oo wax jira ahay oo wax la qaada kara ahay dadka la heshiiyay oo maqasheen cali ka sheegana waa dadkii ku hoos noolaa ayaga oo naftooda ku badbaadinayeen iyo dadkii meelahan ka qaxay oo ayaguna ay ka shakiyeen sugnaan bay u qabteen shirarka iyo wacyigelin iyo ninkan xagee ka yimid iyo kan muxuu haajiri iyo kan muxuu yahay saasay ahay marka wax jira maaha wax jir doona maaha haddaan u soo laabto al-shabaab intaas inaan u dhaafo ma rabo xaggan dowladda waxaan rabaa in aan fariin gaarsiino dowladda dadkii la qaxiyey waa qaxeen al-shabaab ayna u galeen waa dadka ay hunguriyeeyeen oo markay qaxeen yiraahdeen amay dadkan fidna idin keenaan jidadkii maanta